بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. maanta insha allah waxaan rabaa inaan su-aal aan ka jawaabo oo dad badan madaxooda ay ku dhex socoto oo su-aashan isweydiinayaan. su-aashani waxa waaye sidaan ku garanaya inaan sixranahay, inaan ahay qof la sixray. bismi illaahi wabilaahi towfiiq. waxaan leeyahay qofka wuxuu isku garan karaa, waa hadda korna waan ku sheegnay duruusteydna, waxaan dhahnay qofka madax xanuun ziyaado aan ka baxaynin ayuu leeyahay. madax xanuun oo ziyaado ah oo aan ka baxaynin ayuu leeyahay. madax xanuunkaasi hadduu kaniini cabo, hadduu wax waliba sameeyo, hadduu dhakhtar u tago kama baxaayo. tan labaad, waxaan sheegnay in oo aan rabnaa inaan hadda sheegno in qofka after maqrib maahan casr, markii casirka la gaaro, salaatul casr markii la adimo oo la dugto, wuxuu isku arkayaa waa isbedelayaa qofkani, dabeecadiisa ayaa isbedelayso, cariiri ayuu ziyaada oo ayuu dareemayaa. marka wuxuu soconayaa ilaa habeenka laga gaaro, ilaa cisho laga gaaro. waxaad arkaysaa qofkan cariiri ayuu dareemayaa, xanuun ayuu dareemayaa, xanaaqiisaa badanaya. waxaad arkaysaa subaxdii oo dhan wuu fiican yahay, markii galabtii la gaaro dabeecadda ayaa ka xumaanaysa, xanuun ziyaado ah, caajis oo ziyaado ayuu dareemaya. waxaa kaloo jiro oo qofka uu isku arkayaa isbuucii maalin ayuu jiradaa, isbuucii maalin ayuu jiradaa. waxaa dhici kartaa maalintaas inay tahay maalin talaado ah, mase waxaa dhici kartaa maalin arbaca inay tahay. culammadu waxay dhahaan yacni qofkaasi wuxuu maalintaas u jiradaa waa maalinta sixirka jirkiisa galay, waa maalinta sixirka jirkiisa galay, sixirka jirkiisa galay. mase waxaad arkaysaa bishii hal jeer ayuu jiranayaa, mise waxaad arkaysaa sanadkii hal jeer ayuu jiranayaa. qofkaasi jiro oo xoogle ah, oo xoog leh ayuu u jiranayaa. waxay leeyihiin culammadu, waxay dhahaan waa bishii ninkaani oo mise qoftani jirka sixirka soo galay, jirkeeda sixirka galay. marka qofku wuxuu kaloo isku arkayaa, wuxuu riyoonayaa isagoo imtixaan galaya oo kale, qof imtixaan ku jiro oo kale, oo aanan imtixaanka xaleyn karin, imtixaanka ma xaleyn karo. wuxuu arkayaa inuu dhib weyn oo ka hayso, su-aalooyinka kama jawaabi karo, waxyaalahaas ayuu riyoonayaa. marka qofkaasi waxaa dhici kartaa inuu jirkiisa khaadima sixir uu ku jirin, oo sixir kaliya uu yahay. khaadima sixir hadduu kusii ziyaado, waxaad arkaysaa qofkaas qur-aanka markii la saaro jooga ayuu ka dhacayaa. markuu qur-aanka la saara waxaad arkaysaa ma iscontroli karo, waxaad arkaysaa waxyaala ayuu ku hadlayaa uusan asiga og, laakiin wuu maqlayaa laakiin ma controli karo. waxaa la xuduur juzi-a lahaa, kaas xuduur kaamil iyo xuduur juzi ayuu u kala baxaa. xuduur kaamil waxa waaye qofka wax uu ogyahay ma leh, wax uu ogyahay ma leh, waxyaalo ayuu sheegayaa, waxyaalo ayuu burburinayaa, dhawaaqiisa aada u badan. markuu soo kacon wuxuu leeyahay wax kama ogeen. qofna waxaad arkaysaa marka qur-aanka uu ku socdo wuxuu ku leeyahay sheekh wax waliba waa la socdaa, laakiin ma controli karo. xuduur musdawaj ayaa lahaa, xuduur musdawaj. qofku wuu joogaa, shaydaankina wuu joogaa, laakiin waxaad arkaysaa qofka in laga xoog badan yahay oo jirkiisa uusan controli karin. iyo wadaadku caynayaa, wadaadku candhuuf ku tufayaa, wadaadku ayuu gacan ku dhufanayaa. marka waxaad arkaysaa waxaasoo dhan markuu sheekho wallaahi aniga waxaan waxba kama ogeyn ayuu leeyahay. marka qofkaas see lagu garanaya asagana inuu jinni ku jiro? taasaa lagu garanaya qur-aan in la saaro. waxaa kaloo lagu garanayaa masas ayuu arkayaa habeenkii, wuxuu arkayaa ey ayuu arkayaa, waraabo ayuu arkayaa oo raba inuu cuno. waa khaadim sixir ayaa si kasta ayuu iska soo dhigi karaa. waxaa kaloo lagu garanayaa inuu habeenkii inuu u tago rabaa qoftaasi, hadduu nin oo yahna naag ayuu iska soo dhigayaa. marka sidaas ayuu ixtilaamkii wixii ayuu jirkiisa ku arkaya. laakiin waxaan waa inuu wax ziyaado ahaadaa, waa wax mar waliba inuu soo noqdo, ma aha qof waliba oo xaywaan arkay inuu qaadim sixra jirkiisa ku jiro, mise jinni inuu jirkiisa ku jiro.
marka insha allah intaan ayaan lagu garan karaa qofka maaragtay inuu jirkiisa jinni iyo sixir ku jiro iyo jinni iswato, iyo waxaa dhici kartaa sixir kaliya inuu jirkiisa ku jiro oo maaragtay jinni uusan jirkiisa ku jirin. insha allah ilaahay subxaana wa tacaala waxaan ka baryaynaa kelimadan gaaban aan soo jeedinin inuu ilaahay subxaana wa tacaala barako uu ku daro. waxaan ilaahay subxaana wa tacaala aan ka baryaynaa inuu camalkeena camal saalixan maqbuul laa riyaa fiih, inuu ilaahay subxaana wa tacaala ikhlaaska una siiyo oo qalbigeena maaragtay wax waliba aan sameynin inuu ilaahay subxaana wa tacaala dartiisa u noqdo. subxaanaka allahu bixamdik, ashhadu an laa ilaaha ilaa ant, nastaghfiruka wanatuubu ilayk. wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu.